ka mid ah ciyaartoyda ka soo jeeda Afrika ee qaaday dhammaan horyaalka England, horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League la yiraahdo, iyo koob qarameedka qaaradda Afrika oo uu markii ugu horeysay 2022 kula guuleystay xul qarankiisa Senegal. Waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu fiican kubadda cagta ee abid soo saartay qaaradda Afrika. Docda garab weeraradana waxa uu sanadihii dhawaa ku jiray kuwa loogu cabsida badan yahay. Wayaha guuleystay ee kubadda cagta Mane muuqan uga hadlimayno markan waxaynu isdul taagaynaa kaalmada uu ku taageero tuulada uu ka soo jeedo ee la yiraahdo Bambali, gobolka Sido ee dalka Senegal. Mane waxa halkaas ku dhalay waalidiin ka soo jeeda Guinea. Aabihiis oo imaam masaajid ahaa ayaa yaraantiisii ka mamnuucay ciyaarista kubadda cagta, balse waxa aabihii dhintay isagoo 7 jir ah. Horumarada uu ka sameeyay xirfadiisa kubadda cagtu waxa ay ka caawisay inuu kaalmo xooggan ka geysto adeegyada bulshada ee tuulada uu ka soo jeedo. bilowgii Mane waxa uu tuuladiisa ka hirgeliyay isbitaal ay ku baxday lacag ka badan 500,000 oo pound. Dugsi sare ayuu sidoo kale halkaa kaga hirgeliyay lacag dhan 200,000 oo pound. Masaajid iyo goobo kale oo dadweyne ayuu ka qayb qaatay dhismahooda. Waxaa sidoo kale la wariyay inuu lacag joogto ah bishii siiyo dadka danyarta ah ee ku nool tuuladiisa. Tan xiisaha u yeelaysa qisada Mane ee kaalmaynta dadkiisa ayaa ah inuu dhawaan halkaa ka yagleelay garoon kubadda cagta ah si uu daayarta uga caawiyo inaysan marin duruufihii garoon la'aaneed ee uu yaraantiisii maray. Mane waxa uu bandhigiisa garoomada hore ugu kasbaday jacaylka mucaashaqiinta kubadda cagta ee taageera kooxaha uu u ciyaaray oo ay ugu waaweyn yihiin Liverpool, Bayern Munich iyo Al Nassr Sacuudiga oo uu Ronaldo ka garab ciyaaro. Balse sidoo kale waxa uu kasbaday jacaylka kuwa ku nool tuuladiisa oo uu gaarsiiyay kaalmo ka badan in dawladii karto.